guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka oo Garowe u joogay howlo shaqo muddooyinkii ugu dambeysay ayaa shir jaraa'id ku qabteen magaalada Garowe waxay ku sheegeen inay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland isku afkarteen in xafiiska guddiga doorashooyinka qaranka ee Puntland laga hirgeliyo halkan oo ah Garowe si loo hirgeliyo isla markaana Soomaaliya ay uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah doorashada soo socota ee 2021 gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliimo Ismaaciil Axmed Xaliimo Yarey oo warbaahinta kula hadashay Garowe waxay sheegtay in ay dowlad goboleedyada kale ee Soomaaliya ka jira ka hirgelin doonaan xafiiskan magaalada Garowena laga qaatay shaqaalaha ka shaqeyn doona xafiiska guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka kuwaas oo u adeegi doona dadka Soomaaliyeed xilli dowlad goboleedka Puntland 2 bil oo kaliya ay ka harsan tahay doorashadii madaxweynaha ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka. safarka guddiga ee Puntland wuxuu qayb ka ahaa safarro guddigu uu ku kala bixinayo dhammaan dowlad goboleedyada si loo aasaaso xafiisyadii guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedyada iyo sidii looga wada qayb qaadan lahaa dadaalka loogu jiro in dalka Soomaaliyeed la gaarsiiyo nidaam asxaabta ee ku dhisan doorasho qof iyo cod ah loogana guuro oo looga sii siqo nidaamka 4.5ka ama 4.5 ilaa 2000 markuu sanadka ahaa aan ku soo dhaqmeynay inana soo gaarsiiyay heerka aan maanta joogno. waxaan rajaynayaa in sidoo kale aan tagno dhammaan dowlad goboleedyada dalka oo aan ka qayb galino dadaalka lagu gaarayo hirgelinta doorashooyinka qof iyo cod ee sanadka 2020 guddiga ujeedadiisa ugu weyn waxa waaye wadankan inuu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah doorasho awood u siinaysa shacbiga Soomaaliyeed ama qofka shakhsiga ee shacbiga Soomaaliyeed ee gaaray inuu cod bixiyo in awoodda asaga gacanta loogu soo celiyo si uu u doorto berri cid u talin doonta ama hoggaanka siyaasadeed u qaban doonta dalkaaneeto waa awoodii oo koobneed laakiin hadda la ballaarinayo oo ummadii la gaarsiinayo. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka Xaliimo Ismaaciil Axmed Xaliimo Yarey waxa ay sheegtay in kala aragti duwanaanshaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu aysan saameyn ku yeelan karin doorashooyinka Soomaaliya oo ah mas'uuliyad qaran oo la doonayo in si guud loo wada guto xilli badanaaba dowlad goboleedyada ay sanadkan gudihiisa galayaan doorashooyinkooda. guddigan si qaran uu xilsaaran yahay arrimaha technicalka siyaasiyiinta waxay ku soo heshiiyaan ay dhigtaan oo xeer ay ka dhigtaan oo shuruuc ka dhigtaan oo constitution ka dhigtaan aan raacayna oo fulinayna mana aha arrimaha siyaasaddu inay hakad geliyaan arrimaha technicalka ah. siyaasiyiintu waa isu imaanayaan waa heshiinayaan Soomaaliya leeyahay lama kala tagaa meelna uma kala socono hadday tahay waliba hadday u sii daranto arrimaheena danaheena inay isku soo dhawaadaan oo meel la wada keeno ay tahay si aan Soomaalinimo aan wax ugu qabsano. Soomaaliya oo ku dhawaad 20 sano ku dhaqmaysay nidaamka 4.5 oo doorashooyinka hab qabiilaysan lagu soo doorto madaxda metelaya dalka ayaa waxay doonaysaa markan inay ka gudubto nidaamkaasi una gudubto nidaamka xisbiyada badan ee dadku codadkooda ay dhiibanayaan. dowladda federaalka Soomaaliya waxay dadaal ugu jirtaa sidii gobolada Soomaaliya dhamaantood codad looga dhiiban lahaa isla markaana loo dooran lahaa madaxweynaha xiga ee Soomaaliya marka la gaaro doorashada 2021.